cabdirashiid janan taliyaha hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka ee Jubbaland iyo beesha howraarsame oo saxiixday heshiis waxaa soo gudbin doona xog arrinkan la xiriirto iyo colaadii ka taagneed balad xaawe oo loo helay furo muhiim ah waxaan barnaamijkeedii kugu soo gudbin doonaa xogtii ugu dambeysay xaaladda balad xaawe iyo cabdirashiid janan oo afka furtay markii ugu horeysay isla markaana ka hadlay xog faahfaahsan dowladdu waxay balad xaawe saacadda ka dambaysa geynaysaa ciidamo hub iyo sanad kala duwan taas oo ujeedka rasmiga ay ka leedahay tahay sidii looga adkaan lahaa maamulka Axmed Madoobe ee Jubbaland maxay tahay qorshaha filla Soomaaliya arrimahan ku gadaaman xog arrinkan la xiriirto ayaan barnaamijkan kugu baahi doonaa waxa sidoo kale barnaamijkeena qayb ka noqonaya Sheekh Aadan Madoobe waxa uu gaaray Baydhabo ujeedka halkaas iyo qorshayaal koonfur galbeed ka soconaya oo baaxad leh ayaan barnaamijkeena ku eegi doonaa guri ay ku shirayeen horjoogayaal sarsare oo ka tirsan shabaabna waa la duqeeyay soo dhawaada daawadayaal qodobadan ayaan barnaamijkeena ku faahfaahin doonaa haddii ay uu raalli ka noqdo haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir oo ka mid noqo daawadayaasha iyo saaxiibada nagu xiran like-tuna muhiim ayay muuqaalkeena u tahay ee ha hilmaamin hagaaga waxaa ila xilkas ah oo la hadlay warbaahinta nuxurka wararka ay sheegayaan in heshiis hordhac ah laga gaaray colaad ka taagneed magaalada balad xaawo ee gobolka Gadow colaadan ayaa waxa ay ka dhex aloolsaneed dadka magaalada balad xaawo ku nool qaybahooda kala duwan kuwaas oo dhowr qaab ula kala saftay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka Jubbaland iyaga oo qaarkood si aan gambasho lahayn u taageeray maamulka Axmed Madoobe ee fadhigiisu yahay magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ee Jubbaland kuwa kale ayaa iyaguna la saf ahaa dowladda federaalka ee Soomaaliya halka dagaalkii ka dhacay ayaa dhaliyay khasaare xooggan beesha howraarsame oo kamid ah beelaha dega magaalada balad xaawo ee gobolka Gadow ayaa dagaal adag la gashay dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo ciidamadii uu watay Cabdirashiid Janan beeshan ayaa si aad ah waxay u diidaneed dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Janan iyada oo taageersan maamulka Axmed Madoobe ee fadhigiisu yahay Kismaayo dagaalkii socday dhowrka maalmood waxaa gashay beeshaasi iyada oo sababtay in magaalada laga qaxo dad badan ay ku naf waayaan tan iyo markii dowladda federaalka ee Soomaaliya si buuxda ay gacanta ugu dhigtay magaalada balad xaawo ee gobolka Gadow waxa Cabdirashiid Janan oo qaaday tallaabooyin door ah oo la xiriirto in uu waanwaan iyo wada xaajood oo ku xalliyo khilaafaadka kale ee ka tagan magaalada oo xalka xabadda loo bedelo mid wada hadal iyo isku soo dhawaanshiyo arrintan dowladda federaalka ee Soomaaliya inteeda badan waa ay ku guuleysatay oo ciidamadii ugu badnaa ee markaa ka dagaalamayay balad xaawo ee ka soo horjeeday waxay noqdeen kuwo lagu furfuray dhaqaale Axmed Madoobe meesha waxa uu kala kulmay ceeb iyo wajigabax aad u ballaaran isaga oo markaasi ciidamadiisii inta ugu badan ay ka tallaabeen xadka Kenya beesha howraarsame ayaa iyadu degtay meel aan sidaa kaga fogeyn magaalada balad xaawo halka ay suuragal noqon karto in mar walba ay weerar soo qaado kolkii halka ay tagtay waxa ay dalbatay in waawaan la furo sidoo kale loo sameeyo ballanqaad si ay isku soo dhibaan oo markaasi ay qayb uga noqdaan heshiis ay garwadeen ka ahaayeen odayaasha deegaanka ayaa la isla gartay oo qalinka ayaa lagu duugay heshiiskaas ayaa waxa uu yahay in beesha saraakiisheeda iyo dadka waaweyn ee markaa ka baqanaya in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay maxkamad la tiigsato ay u gudbaan Kenya oo sidaa ay ku aadaan Kismaayo halkaas ciidamada kale ee soo haray ay isku soo dhiibaan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyaga oo heli doona nambaro ciidan dalacsiin iyo mushaar joogto ah sidaasna ula shaqeynaya dowladda federaalka ee Soomaaliya arrintan ayaa qalinka lagu duugay waxa dowladda wakiil uga ahaa Cabdirashiid Janan sidoo kale waxa goobjoog ahaa xubno ka socda dowladda sida xildhibaan xogayaha joogtada ah ee wasaaradda gaashaandhigga General Kaalmoy oo iyagu ka soo jeeda beesha howraarsame iyo golaha guurtida ee magaalada ujeedka ugu weyn arrintan ayaa waxa ay tahay in xaaladda magaalada balad xaawo ay noqoto mid markaasi waanwaan iyo wada xaajood lagu dhameeyo oo la joojiyo colaadaha iyo sidoo kale dirirta tooska ee halkaas ka dhacaysay muddooyinkii ugu dambeeyay taas oo dhalisay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac oo soo gaaray dadka rayidka ciidamadii dagaalamayay iyo sidoo kale burbur xoogan oo magaalada ka dhashay
warbixinada laga soo tabinayo magaalada Beled Xaawo ayaa waxay ahaayeen maalmihii ugu dambeeyay kuwa aan u wanaagsanayn maqalka dhagaha dadka Soomaaliyeed oo xambaarsanaa dhiilo iyo cod balse haatan reer Beled Xaawo waxay haystaan nabad oo ay ku naaloonayaan geesta kale hadii aynu eegno ikhyaari waxa ila xilkasii ay sheegayaan in magaalada Beled Xaawo haatan ay ka socdaan abaabul xoogan oo la xiriira sidii loo soo afjar lahaa colaadan isla markaana magaaladaas ay dib xabad uga dhici lahayn jaran ayaa isagu danaynaya in Beled Xaawo uu si degdeg kaga farxasho si uu ugu gudbo degmooyinka kale ee gobolka Gado sida Luuq iyo sidoo kale Dolow Luuq iyo Dolow ayaa hadda waxa dabcan ka arrimiyo xubno gacan saar la leh Axmed Madoobe Dolow iyada dagaal ayaa ka dhacay oo waa faraha ayaa la isku saaray jaran ayaa marka uu xasiyay Beled Xaawo waxa uu qorsheenayaan in uu sal dhigto magaalada Dolow ee isla gobolka Gado halka ay joogaan ciidamo ka tirsan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka oo dhawaan Itoobiyaanka jooga halkaas dagaal kula galay geesta kale magaalada Beled Xaawo ee gobolka Gado ayaa haatan degan iyadoo si buuxda ay maamulkeedu la wareegeen ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya uu hogaaminayo taliyaha NISA ee Jubbaland Cabdirashiid Jan ciidamadan ayaa arbacadii si awood kula wareegay saldhigga magaalada xarunta hay'adda socdaalka iyo xarunta degmadaba waxaana haatan dib u soo laabtay adeegyadii muhiimka ahaa ee gudaha Beled Xaawo isgaarsiinta oo goonayd muddadii dagaalku uu socday ayaa haatan dib u soo laabanaysa oo ay shaqeynaysan arintaasna waxa ku guuleystay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed jaran ayaa sheegay in xaaladda magaalada ay haatan degan tahay isaga oo ugu baaqay dadkii ka barakacay in ay dib ugu soo laabtaan magaalada dib ayaa loo soo celiyay oo ay joogaan xarumahooda xarumuhii dawladda waxa gacanta ku haya ciidanka dawladda shacabka waxaan ugu baaqayaa in ay isdejiyaan oo ay ku soo noqdaan gudahooda ayuu yiri taliyaha NISA ee Jubbaland Cabdirashiid Jan sidoo kale jaran ayaa ciidamadii la dagaalamay ay ka adkaadeen ugu baaqay inay dib uga fikiraan oo aysan mar kale dadkooda soo weerarin taas oo ah baaq toos ah uu rabo in ciidamadaas aysan u dagaalamin Axmed Madoobe waxa uu ballan qaaday in ay la heli doonaan darajooyin iyo wax walba oo mudnaan wiilasha Soomaaliyeed ee la soo qalday waxaan rajaynayaa ama odayaasha ka dambeeya ay ka waantoobi doonaan wixii dhacay ay yiri jaran ayaa ku celceliyay in ciidamada uu hogaaminayo muddo ka hor joogay dagaal wiilal Soomaaliyeed wada galaan maadaama uu aaminsan yahay in ciidamada u dagaalamay Axmed Madoobe la soo qalday balse ay markii dambe ka fursan weyday ayna sidaas u la wareegeen gacan ku haynta Beled Xaawo ayaa martigelisay colaad maalmo badan socotay ciidamadii Jubbaland ee taabacsanaa Axmed Madoobe ayaa la sheegay in ay u carareen dhanka Mandheera ee Kenya waxaana suuragal ah in ay dib u soo rogaal celiyaan oo ay dagaal ku soo qadaan Beled Xaawo inkastoo arintaas ay dadka siyaasadda oo dorosahay yaqaana gobolka Gado ay ku tilmaameen mid aan dhici karin balse Axmed Madoobe ayaa si aad ah ugu fara adeegaya gobolkan isaga oo doonaya in uu kula dagaalamo dowladda federaalka ee Soomaaliya daawada aragtida waa inoo muhiim halkan waa nuxurka wararka